asxaabay meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ciyaarihi baan gudgali doonaa kulay horyaaladii kubadda cagta Yurub ayaa soo laaban doona wixii maalinta bari ka dambeeya ciyaaruhu xulku halka ay ku dhanyihiin waxa la isugu soo laaban doona ciyaaraha kooxaha oo horyaaladii baa dib loo ciyaari doona iyo Champions League dadku qaar waa ku yara caajiseen xulalkii oo kooxihii baa aad iyo aad loo wada xiiseynaya Liverpool ayaa markii ugu dambeysay 7 gool laga dhaliyay laakiin markaad aragto Liverpool iyo siday sanadkan boss walba khatar ugu yihiin iyo wixii maalmood ku dhacay waxay ahaayeen amar u bay ahayd koob wuxuu doonayaa wiji ka duwan wajigii 7 gool inay ku soo laabtaan ciyaarta soo aadan Premier League laakiin waxay wajahayaan Everton oo ah niman runtii aad u adag badan runtii laakiin Liverpool runtii waxaad ogtahay marka kooxaha waaweyn la ciyaarayaan Liverpool wiji kale leedahay haduu fiirso nimanka 7 gool lagu dhuftay lagu leeyahay waxay ka soo badiyeen Arsenal iyo Chelsea ka soo badiyeen ka war Aston Villa meel ugu soo baxaysa inuu Liverpool ilmaha mararka qaar ka hoos bixiya oo aadan sidehin waa laga hoos bixi karayaa marka laakiin kooxaha weyn markay ugu la ciyaarayaan si serious bay u ciyaarayaan laga yaabo Everton haddaan ka wada baqayno leenahay Armaan sanadkan iska Everton oo isleena sanadkanba Armaan sanadkan madaxdiisa isaga aadna Everton ay dadku qaar iswada leeyihiin oo Everton baa sanadkan u muuqata koox aad u adag oo hoggaankiiba haysa laakiin markay nimankan Liverpool raado dhabay tagto oo ay dhabta tagto xooyaan waa la iska celi karin kulay waxa la leeyahay club wuxuu diyaarinayaa koox ka duwan kooxdii 7 gool laga dhaliyay marka dib loo isugu soo laabto horyaalada laakiin waxa ka yaabeen Liverpool sanadkan inay dooqiyo badan haysatay laakiin wixii ku dhacay ay ahaayeen wax aad u daran hadda gool hayay suuq ka doonteen intaanu kala isugu ciyaartay ku xirmin kadib markii maalmood Adrian uu fashilmay oo laga dhaliyay Adrian 7 gool Jordan ku arag inkaar weeyaan kala badoo ku arko waa inkaar gool hayay koriis basaan uu arkay ciyaari dhan waa ka joojiyay gabiixan haddaba Liverpool saas oo ay tahay sanadkan dooqadeedu ma xumaad gool haye kale ku soo darsanayaan waxaan hadday gool hayaal u haystaan Alisson iyo Adrian difaacoodu waxay dooqayo kala duwan sanadkan u haystaan Arnold Williams Gomez Matip Van Dijk Robertson iyo Tsimikas runtii Liverpool waxaad u malaynaysaa difaaciida yaa in xooga u muuqdo inuu mid la xoojiyo inuu rabo ayaa dareemaysaa qadkeeda dhaxoo kale Fabinho Thiago Alcantara Henderson Wijnaldum Keita Oxlade-Chamberlain Milner iyo Jones qadkeedu uu fiican yahay dhexe weerarkooda xataa Salah Shaqiri Wilson Elliot Minamino Firmino Origi Mane Jota runtii weerarkooda wax khataro waxa dareemaysaa Liverpool kaliya in laga haysto booska difaaca oo ay ahayd Liverpool inay ka soo taxadirtay in iska soo dhuujiyaan marka Liverpool marka lagu soo laabto ciyaaraha waxay doonayaan inay